هلا على مساره هلا على مساره هلا على مساره munaasabaddan oo isugu yimaadeen waxgaradka odayaasha madax dhaqameedka iyo cuqaasha mid ka mid ah beelaha dagabariga magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay isku raaceen doorashada golaha wakiilada deegaankaasi uu matalo musharax gudoomiye Ibraahin Aadan Awqoobay oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee u sharaxan doorashadaasi shirka waxaan ku furay anoo ka wakiila madax dhaqameedka reerka Maxamed Ismaaciil la yiraahdo oo saddex suldaan iyo saddex aqal male ayaan anigu afkoodi ku hadlaya afkii Maxamed Ismaaciil baan ku hadlaya waxaan leeyahay way soo raacday markaanu ka baaraandegnay rognay waxaanu inaanu golaha wakiilada geyno oo ku dooranno codkii midkii loola jiray Timcadee lagu doortay Soomaaliland ugu codka badnaa ayaa halkan u fadhiya waxay u fadhiyaan Ibraahin Aadan aw Ibraahin aw Xasan oo Awqoobay ku magac dheeraa waana aqoon-yahan oo soo xulanay horta inta inaga maqaneen Maxamed haday caaqil tahay iyo haday suldaan tahay iyo haday dabada ku maqan tahayba waxaan leeyahay Maxamed Ismaaciil 12 jeeb waxay isku raaceen Ibraahin Aadan Awqoobay inaanu caleema saarno golaha wakiilada geyno 20 kun cod ku soo saarno warqadii ay qoreen ilmo golis markii ay halkan ku shireen 15 kayga gudida markii aan u yeernay ee intii horena diiday ee aanu lahayn wax saxa sagaal maalmood baanu golaha fadhinaano ka hadlayno sagaalkaaba waxaanu doonaynay inaanu nidhaahno walaalayaal aan talada meel ka wada jiidno waxaa nagu diiday guluub yar oo aan waxba markaa iyagu aan eegahayn waxay soo ansixiyeen go'aanka warqadda ku qoran ayay soo ansixiyeen saxiixiisina waa ka annaguna haddaanu nahay Maxamed Ismaaciil weyne waanu ayidnay gudidii 15 ka ahayd iyo intii kale ee garabadayada ahayd waanu ayidnay annaguna oo gudidii ayagoo ah waxaan Maxamed Ismaaciil diiday waan diiday waxaan Ibraahin waa ku raaco waa ku caleema saara Ibraahin hadii warqadii hore xilli baad laga xumaatay dee hagaajiye waan lahayne dee tulkeen bayna kala furtay laakiin codka dab laga xumaan maayo insha Allah bismillaah kariim walba Ibraahin xilli baan baad u tahay adigu kii wax warqadii hore qoray iyo inta ku soo dhaweysay xilli baan baad u tahay sidaa ku talagalado kuwa dabada u tahay kuwa kii hore aduun baa xilibaan maanta ah intaas ku dooratay sifa xalaal soo baxay waanu kuugu hambaliyeynay ninkana loo gartay la caleema saaray anana waanu hambaliyeen waxaanu leenahay dadku ma aha dee cid wax iska qabsan kartaa ma jirto cid kaligeed wax jecel kartaa ma jirto waxba ma kala lihin waxaynu isugu imanaynaa halka reerku isugu yimi cid waliba ha timaado ha soo dhawaato cidnayay habsaami annagu haddii aanu nahay guddiga hore kuma eedaysnin kumana khasbanin aanu dadka joogno wixii aanu soo qoray aanu marino laakiin wixii aanu ku khasbanay wixii Maxamed Ismaaciil qaatay anaguna la qaado dee waxaa Maxamed Ismaaciil qaatay ayaa anagu guddi ahaan la qaadanay kana raadinay Ibraahin dadku lacag kuma qaadan dadka badhba warkayay dhaameel ku raacay dadkani dad dhaameel way ka weeyeen Maxamed Ismaaciil waxa dheemaal gaaro uu ka weeyahay shakhsiyaadkiisa ku raacay laakiin waxay u arkeen kalsoonidooda iyagoo waxay u arkeen inay qaataan ee hal la qaato Ibraahin waxaan leeyahay xildhibaan Ibraahin Aadan Ibraahin Awqoobay waxaan leeyahay Ibraahin ee maanta reerkii adigu ku doortay nin la doortayna waa nin xil weyn qaaday dadka soo horjeeday uu dadku leeyay dadku taageeraya uu leeyay qaar ku caayay leeyay qaar imkadeel si ay wax badan bay leeyay adigu Ibraahin cudur xildhibaan baa u tii dulqaadkeeda lahaw سوينا كاينا إبراهيم آذن Awqoobay ma garan أنا نوع غني من البلد اللي أنا بقول قاعدنا
علمي بارك لين مضحوا وعلى مسار يوصل النبي قال المسوى هنا إبراهيم هذا القبيل بارك الله وأوروبا غيرك أوروبا للوي أنا بروح أروحي ومشكلة يا تدوينان حفتنا شرفت عليه المسوى دوي إبراهيم آدم أو قولي والحديمان كعهد هوينت محمد إسماعيل وسرعي إنه مسلحة محمد إسماعيل يا إبراهيم هذا وقوي نوره سلا قوي والوسكين وياه إبراهيم آدم أو قوي أيام وهم بليانيا حلبان كبارلمان waxaynoo dabayn doona xafladii ugu weyneed qiimaha lahayd taana waynoo dabaynaysaa marka aan soo xidho shirka waxaynu caleema saaraynaa ibraahim xildhibaanka aadan awqoobi Rashid Barad, TV Hargeysa.